dhegaystayaal qaar ka mid ah barnaamijyadii dhaqanka iyo hiddaha ee sanadkii hore halkan ka baxay ayaan ku soo qaaday su'aal ku saabsanayd sababta ujeeddada jacaylku ay ugu yar tahay maansadii kalaasiga ahayd ee soomaalida taasoo markii aan ka jawaabayay aanu aaneeyey habkii nololeed ee ka jiray geyigii ay soomaalidu ku dhaqan jirtay iyo dabeecadaha raggeedii xooloraacatada ahaa uu geyigaasi ku tallaalay waxaan idhi wuxuu ahaa geyi aan nasasho laga aqoon oo halgankii ay jiritaankooda ugu jireen aanu kala gool ahaan jirin colaadda iyo cabsida ayaa joogto ahaa haddii habeen dumo iyo hadduu waaberiyo goor walbaba raggu rikaabku joog buu ahaa wuxuu ahaa xilli ay si ba'an xoolaha u kala qaadi jireen kolkaas bay u ahayd mar ay geel dhacayaan iyo mar ay dhicinayaan haddaba soomaalidii geyiga sidaasa muddada dheer ku dhaqnayd waxay ka dhaxashay dabeecado ilaa maantaba ay in badani kala socdaan waxaana dabeecadahaas ka mid ahaa kol walba ninku inuu adadayg ku tilmaanaado inuu qarsado dareemadiisa qof ahaaneed iyo waxa laabtiisa ka guuxaya dadka kale inaysan si fudud uga ogaan oohin iyo ilmayn iska daaya jirjireeca iyo dabacsanaanta ayaa waxay ahaayeen dabeecad ninkii lagu arko lagu liido sidaa daraaddeed bulshadii sidaa u fakaraysay dhexdeeda maansada jacaylku kuma bulaali karin inkastoo sidii weerar burxan maansayahanadii hore qaarkood ay arrintaa iyada ah ku gacan sayreen gabadhii ay laabtu ka raacdayna u tiriyeen tixa aad u qurxoonoo dareenkii jacaylkooda ay ku muujiyeen weerar ka hor ugu yaraan 2 jeer waatuu raaga ogaasna jacaylka dumarka la ooyey mar waa markii inantii u doonanayda uu ila biyala ula baxay inta la weyraariyey indhihiisa oo 5 ah axmed wiilwaal loogu faatixeeyey marna waa afadiisii faadumo cilmi xuseen markuu libaaxu ka cunay dabadeedna uu ka tiriyey gabaygii uu ilmadiisa anqaasta uga dhigay ee uu ka bilaabay sida koorta yucuboo la suray korama buubaala gabaygii uu ku dhammayn jiray 1,001 kurtoo dumar haddii laysu wada keeno kolna waxaan la helayn haween faadumoo kale si kastaba ha ahaatee in badan oo ka mid a soomaalidii reer miyiga ahaydi markay reer magaalowday ayaa dhaqamadeedii qaarkood wax iska beddeleen waxaa soo baxday heello iyo hees casri ah oo noqday gabayadii iyo geeraaradii la yaqiin wax ka duwan maansadii jacaylka ee laga gaban jirayna ay si xad dhaaf ah hal abuuradu ugu soo bandhigeen inkastoo haddaba maansayahanadii waaweynaa ee xilligaasi ay badiba suugaanta caynkaasa dhaliili jireen haddana waxaa jiray qaar tiro yaroo jacaylkii soo maray gabayadii ay tirin jireen kaga hadlay taasoo ay ku muujiyeen in hababkii hore ee suugaanta loo curin jirayna lagu curin karo meelisyo aad u dabacsan oo dhaqaajin kara dareenka dadka dhagaysanaya indhahoodana ilmo ku soo joojin kara bal marka hore ila eega tixdan uu mariyey gabyaagan reer magaalka ee aanan magaciisa helin gabyaagan uu jacaylku laf iyo ludba ka saameeyey meelo fogfogna la gaaray si ay ku dhacdayba wuxuu ninkani awoodi kari waayey gabadhii uu jeclaa inuu ku guulaysto sida muuqatana dhul kala fog ayay labadoodu ku kala sugnaayeen markaas baa waxa u soo hadhay inuu gabyo oo keliya in xanuunka haya uu bulshada la qaybsado in kolkuu waaya joogaba uu fariimo maanso gabadha u diro uguna sii dhiibo kolba ciddii uu la kulmo oo dhulkii ay joogtay u socota gabadhaas oo zaynab lagu magacaabi jiray markaana ku sugnayd saaxil oo ah waayadii hore magacii berbera loo yiqiin ayuu tixdan soo socota gabyaagu ugu sii dhiibay nin magaalada u socdayoo saalax la ohan jiray isaga oo muujinaya jacaylka uu zaynab u hayo iyo waxa uu marsiiyey ayuu yidhi saalaxow adaa soconayo qaatay sahaydiiye salaama alla yeeliyow haddaad saaxil nabad gaadho sawdiraan ku faro iiga gee zaynab waad heliye saqda dhexe allaylkii hurdada waan ka sararaadheh soortana ma cuno aawadaa saa'im saanahay dheh 3 goortii aan qado ayaan subax qureecdaadheh waxaan sarara weynaa baryahan samay ka dhuubnaadheh saraawiishi waa iga bateen igu samaysnaadheh hadba aniga oo soconayaan sare u qaadaadheh saraan qura haddaad soo dirtoo subaxda ii keeno adigoo sariir ila fadhiya kama sokayseen dheh sidii aan santari gaarahoo saami lagu qaybshay shirka gaariyadan kaa dayaasaan u taagnahay dheh ma samrine sidaad ii ogayd waan ku sugayaa dheh sida ay dad badani weli xusuusan yihiin allah u naxariistee cali cilmi afyare wuxuu ku jiray maansayahanadii soomaalida ee sida weyn u caanbaxay qaybtii labaad ee qarnigii 20aad wuxuu ahaa gabyaan miro waaweyn iyo luuqba la isugu daray oo sidii waayadii hore maansada u curiya mar uu gabyo mar uu geeraaro iyo mar uu jiiftada ku wahsadaba inkastoo uu soo gaaray xilliyadii heellada iyo heestu ay cirkaa marayeen haddana marna iskuma uu dayin intuu xaggooda u bayro inuu wax ku curiyo
hase ahaatee wuxuu ka mid ahaa iyagoo hababkoodii hore adeegsanaya hal abuuradii ujeeddada jacaylka maansadooda wax ka siiyey. waxaana loo hayaa laba gabayoo markaad dhegaysato aad ku iloobi karayso meelisyadii dabacsanaa ee heellada ujeeddada caashaqana loo culin jiray. labadaas gabay midkood ayuu cali afyare wuxuu u tiriyey amaba ka tiriyey jacaylkiisii ku saabsanaa gabar safiyo cismaan la odhan jiray oo har iyo hoyaadba u diiday daraaddeedna jidhkiisa iyo naftiisaba uu walbahaarku xubin xubin ugu fiday. wuxuu ku bilaabay: niman yahow sabaan baa i helay sannada maanta ahe samadiyo waxaan marahayaa saanigaa dhexe eh hadba aniga oo suuxay baan soo hinqanayaaye sahal hayga moodina cishqigu iga sal weeyaane. xalay saamaleylkii kolkuu uunku wada seexday anigiiyo santari gaar hayaa joogna suuqyada eh waxaan sugayey mooyee cidlaan saakunku ahaaye. sidii culimo soon xiratay oo soortu cuna weyday ama niman siraadeen qabtay ee sool la dhugatoobay ama qolo safay noqotay oo saxalku meeraayo waxa sabarku ii dhuubtay waa faalla saa'ide. tan iyo sababa seeraha hobyood soolka cadadheero sagag iyo waddadii saaxil iyo sabadkii nairobi sangafuura suudaani iyo sayrac gudaheeda soojada intii qoratay iyo magaca soomaali sabaad midabkileeye hablaha way u sidatay. markaas buu u gelayaa sababta uu inanta ku calmaday iyo ammaanteeda, xubnaha oogadeeda, dabeecaddeeda macaan iyo sheekadeeda soo jiidashada leh intaba. ugu dambaystana wuxuu naftiisa u sheegayaa si uu yeelaba sida ay uga go'an tahay safiyo inay tiisa noqoto. wuxuu yidhi: sanqaroorka laga saaray iyo suunnida iyo foolka saraanta iyo sheekada kolkay sararta kaa joogto salxanyaha wejiga iyo timahaad suuri carab mooda sacabkeeda nuur kale kolkay garabka kaa saarto ama yaraha sii socoto oy saanta tirinayso suuqii bannaan iyo kol baan marinka sheegay. sanbabkiyo waxay igaga taal seeda dhabarka ah ee ka sahwiyey salaadii iyo sunnahan sii rukuu celiye sinaadkeeda waa laga baxshaa soofka dunida. sawir lama ammaanto ee yartani saxarla weeyaane haddii aan sanadu ii diidin iyo suuradda iyo sheekhu saaxiibnaya iyo wax badan sabansabdheeyaaba walle aniga safiya cismaan waisku soconay. suuqii bannaan iyo kolbaan marinka sheegaayay sanbabkiyo waxay igaga taal seeda dhabarka ayay ka sahwiyey salaadii iyo sunnahan sii rukuu celiyey sinaadkeeda waa laga baxshaa soofka dunida iyo sawir lama ammaante yartani saxarla weeyaane sawir lama ammaanta yartani saxarla weeyaane haddii aan sanadu ii diidin iyo suuradiyo shiikuu saaxiibnaya iyo wax badan sabansabdeeyaaba walle aniyo saasiya xismahoan way ku soonaye.